السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ka dhaca dunida kuwooda ugu xiisaha waaweyn waa maalinimo Jimco ah 22 bishii 2020 waxaan warkeenu ku bilaabeynaa dowladda federaalka wasiirkeeda u qaabilsan caafimaadka Dr. Fawziya Xaaji Abikar ayaa waxa ay sheegtay in laga helay kiisas hor leh COVID-19 16 kiis oo hor leh iyadoo ay sheegtay inay kasoo bogsadeen 26 qof oo kale waxaan kaloo daawadayaal idiin haynaa warbixin ku saabsan siyaasiga Salaad Cali Jeelle ayaa waxa uu si adag u difaacay dowladda federaalka isagoo canaan dusha uga riday madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa isagu madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ayaa shalay shir jiraad u qabtay waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka ee hadeer jirta oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ka gaabisay amaba aanay sidii habsami u socodkii laga rabay aanay u maareen kiiska dacwada ka dhanka ah badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Salaad Cali Jeelle ayaa waxa uu yiri Soomaaliya maanta uma baahna cid niyadda ka jabisay waxa ay u baahan tahay ayuu yiri cid niyadda u dhista ma ahan buu yiri in qof mas'uul ah ama xil dalka ka soo qabtay maanta oo kale uu idaacadaha la soo istaago dowladda waasaan iyo arrinka badda waa sidan taasoo niyad jab ku keenaysa ayuu yiri shacabka Soomaaliya wax loo baahan yahay ma ahan ayuu yiri mudane Salaad Cali Jeelle iyadoo daawadayaal ay ahayd asbuucan aynu ku jirno markii ay dacwadii badda maxkamadda ICJ dib u dhigtay mar saddexaad ayaa waxaa shacabka ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ee ah dadka Soomaalida ay isu jira dadka ganacsatada iyo dadka rayidka waxa ay muujiyeen cabsi fara badan iyaga oo dad la wareystay sheegay in cadaadis aan hore loo saari jirin loo saaray iyada oo awalba loogu soo gabaday lockdown ama waxaan uu coronavirus keenay ee ah in dadka ay isu socodka iyo gaadiidka dhammaan la xanibay iyo goobaha ganacsiga dadka xaafadda Islii ku nool ayaa waxa ay sheegeen amaba ay saxaafadda u sheegeen in la saaray cadaadis fara badan taasoo ay u nisbeeyeen amaba ay u sababeeyeen in ay keentay arrinta badda oo arrin xasaasi ah oo muddo soo jiitamaysay ku dhawaad 10 sano taasoo u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalkaasi Kenya. Haddaba mid ka mid ah ganacsatada ku nool Islii oo magaciisa aan la soo sheegin ayaa waxa uu yiri waxa aan lagu sameynayo waa wax ka baxsan ayuu yiri lockdown iyadoo gabi ahaanba aan loo ogoleen buu yiri hal albaab oo qof Soomaali leeyahay oo ganacsi in halkaas la furo tanoo ka duwan ayuu yiri qaabka loola dhaqmo dadka kale ee muwaadiniinta ah fadlan haddii taa markii ugu horeysay channelka subscribe saar gambaleelka furo adigoo mahadsan. haddaan u gudubno wararkeena dibadda waxaa ugu waaweyn dalka Venezuela ayaa waxaa laga soo sheegayaa inuu shidaalkii gabaabsi ku yahay kadib markii uu waqti fara badan oo kala xiraayay isu socodka dunida ayaa waxaa sheegaya in maraakiibta shidaalka ka soo qaada dalka Iran ee u soo qaada Venezuela hanjabaad ugu timi ciidamada Mareykanka ee badda fadhiya taasoo ay ciidanka Venezuela ay maraakiib ciidan ama diyaarado ay u direen si ay u soo galbiyaan maraakiibta shidaalka sida ay u soo gaarsiiyaan dalka Venezuela. ciidanka Venezuela ayaa waxa ay muujiyeen in ay arrintaani uga jawaabayaan hanjabaadda Mareykanka iyo xulafadiisa ah inaan badda soo mari karin wax shidaal saaran waxaan kula daawada idiin haynaa gobolka Florida ee ku yaala dalkaasi Mareykanka waxaa meel laga dukaamaysto shopping mall ayaa nin galay kadibna waxa uu la dhacay rasaas dadka halka joogay waxaa la soo sheegayaa in ay gaarayso dhimashadu 3 qof iyadoo dad badan ay ku dhaawacmeen booliska ayaa markiiba goobtaasi gaaray waxaana la sheegayaa in ninkii falkaas sameeyay booliska halka ku toogteen. waxaa kaloo idiin haynaa warar ku saabsan Mareykanka gudihiisa aqalka cad ayaa dad banaan baxay hortiisa waxa ay safeen waxa loo yaqaano body bags oo ah bacaha ama boorsooyinka u samaysan sida balaastigga ee la geliyo dadka marka ay geeriyoodaan waa moog media tan iyo kulanti dambe.